dowladda hoose ee degmada Burco ayaa gubtay ilaa 12 tan oo sharaab dhacay ah kaasoo shirkad lagu magacaabo Al-Ikhwa u soo gudbisay xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Burco iyo hay'adda ilaalinta tayada Somaliland ee gobolka Togdheer oo si wada jira uga qayb qaadanaya gubista sharaabkan dhacay oo lagu gubay goob ka baxsan gudaha magaalada Burco. xildhibaan Siciid Axmed Raago oo si weyn uga dhex muuqday gubista iyo riritaanka sharaabkan oo ka hadlayay goobtaasi loo aastay gubista sharaabkan ayaa sheegay in ka dowladda hoose ahaan ay diyaar u yihiin sidii ballanqaadkooda ku jirtay ilaalinta fayadhowrka iyo tayada alaabta Burco. ololahana qayb ka yahay buu yiri mid lagu kantaroolayo sidii aan bulshada loogu iibgeelin wax waqtigoodu dhacay. halkan waxaanu ku gubnay 12 tan oo ah sharaab dhacay oo ka soo qaadnay bakhaarada shirkadda wadaniga ah ee Al-Ikhwa. sharaabkaas oo ka kooban cabitaan noocyadiisa kala duwan. haddaanu nahay maamulka cusub ee golaha deegaanka waxaan u sheegaynaa ganacsatada iyo shacabka reer Burco inay ilaaliyaan oo ka qayb qaataan horumarka caafimaadka gaar ahaan fayadhowrka. madaxa hay'adda ilaalinta tayada Somaliland ee gobolka Togdheer Maxamuud Saleebaan ayaa ka codsaday bulshada ku nool magaalada Burco gaar ahaan ganacsatadu inay ka caawiyaan una fududeeyaan usoo gudbinta alaabooyinkan waqtigoodu dhacay si ay uga basriyaan alaabtan dhacday soo aruurisay oo soo boodisay shirkadaha kalena muwaadiniinta waxaan ka codsanayaa inay alaabta aanay qarin wixii dhacay ay noo soo foon gareeyaan. agaasimaha waaxda fayadhowrka caafimaadka ee gobolka iyo saraakiil ka tirsan dowladda hoose ayaa sheegay inay tahay khiyaamo iyo magac dilba inaad hoosta ku haysato wax dhacay kana waramay inay u xuntahay caafimaadka bulshadeena isla markaana ka codsaday inay ka waantoobaan haysashada alaabooyinkan waqtigoodu dhacay. dowladda hoose ee degmada Burco ayaa waxa ay tallaabadani noqonaysaa mid ay ku bilaabayaan olole ballaaran oo ka dhan ah ilaalinta tayada alaabooyinka magaalada waxaana howlgalkani si weyn u soo dhaweeyay bulshada ku nool magaalada Burco iyadoona mas'uuliyiintani mahadnaq ballaaran u soo jeediyay shirkadda Al-Ikhwa oo iyadu bilaa shuruud ugu soo gudbisay sharaabkan waqtigoodu dhacay kuna tilmaamay kuwa ku dayasho mudan. Cabsaaq Faarax Cabdilaahi, Telefishinka Qaranka Jamhuuriyadda Somaliland, Burco.